gudoomiyaha isbeddeldoonka siyaasadeed ee beelaha Bantu Banaadiri Baraawe iyo Baajuun ee dalka Soomaaliya ayaa la hadlay telefishinka SRTV. Cali Barkhad ayaa faafaynta warkaasi noo eegaya. gudoomiyaha isbeddeldoonka siyaasadda beelaha dulmidiidka ee Banaadiri Bantu Baraawe iyo Baajuun ee dalka Soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka xisbiga shaqaalaha ama Labour Party-ga dalkaasi Soomaaliya oo dhowaan lagaga dhawaaqay mudane Maxamed Mukhtaar Beley ayaa dhowaan safar siyaasadeed oo gaaban ku soo gaaray xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga. mudane Maxamed Mukhtaar Beley ayaa sheegay in ujeedooyinka uu safarkiisu deegaanka ku soo gaaray ku qotomaan kuna sheegay inuu ahaa safar siyaasadeed isagoo oo ka soo kicitimay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho soona maray dalkaasi Kenya haddana ku sugan deegaanka Soomaalida maadaama uu dalkaasi ku soo feeleeyahay isbeddel siyaasadeed isla markaasina laga alkumay asxaab tiro badan oo dalkaasi uga gudbay siyaasaddii awood qaybsiga isagoo xisbigiisu ka mid yahay asxaabta u diiwaan gashan dawladdaasi federaalka Soomaaliya wuxuuna deegaanka Soomaalida u soo gaaray aqoon kororsi dhanka asxaabta siyaasadda ah wuxuuna ku tilmaamay arrimahaasi safarkiisa ku aadan sida tan marka hore wuxuu ahay awood qaybsi siyaasadeed hadda alxamdulillah waxaa loo gudbayaa xisbi siyaasadeed Soomaaliya maanta markay ugu horeysanay xisbi siyaasad ay gaarto anina waxaan diiwaan gashtay xisbiga shaqaalaha Soomaaliyeed xisbi muruqmaalka Soomaaliyeed maadaama aan xisbigaas sameysay marka waxaan siyaasad dheer inaan taabano meel dheer naagaarno waxaan fikiray inaan gobolada xisbiyaha ka dhisan iyo maamulka federaalka dhisan inaan soo booqdo iyo qaabka u shaqeynayaan iyo si xisbiyaha looga shaqeynayo Soomaaliya markay ugu horeysan marka halkaan saa soo gaaray farxad bay gelisay Jigjiga imaashadeeda wax badan ba isbeddelan ka arkay siyaasadeeda oo balaaran wadanka amni ah dadkii kala dambeeyo maamulka shaqeynayo xisbiga saa damac ay galay inaan xisbigeena xoogsano waxaan raasinahay xisbiyada halkaan joogo wada hadal siyaasadda sameeyno si Soomaaliya maanta cariiriga ay dhibaataan ugu bixi lahayn dad Soomaaliya nahay isku afbaan isku deegaan baan nahay in wada tashi siyaasadeed isku meel ku imaan isku fikrad ku imaan deegaanka Soomaaliya meel kasta ay joogtana waxaan jeclahay in xisbigeena iyo wada shaqeyn Soomaaliya lagu taageero anna waxaan ku taageersanahay dadka maamulkan wado hooshooda talaabada maanta ay ka gaartay Jigjiga isbeddelka siyaasadeed aad baan ugu farxay bal aad u riyaaqay waanu mahadcelinaa madaxda maamulka dad joogo oo shaqo fiican hayo oo mas'uuliyiin culus ah inuu Ilaahay u fududeeyo dhinaca kale gudoomiyaha xisbigaasi mudane Mukhtaar Maxamed Beley mar la weydiiyay bal sida uu arko kuna cabiri lahaa aragtida odhanaysa ma ogelin meel Soomaalinimo ka hooseysa wuxuu ku tibaaxay sida tan wadanka markaan joogo ana Muqdisho joogo asmaleynay Soomaalinimada ka sareyso meel Soomaali ah oo afka lagu hadlayo dadka lagu hadlayo dhaqanka iyo shacbiga iyo walaaltinimada kala jaceelka meel aad ii farx geliso way Jigjiga waa dhul Soomaali aad u farx badan ciid fiican leh culture fiican leh dad fiican leh maamul fiican ka arkay amnigiisna aad buu u fiicnaa xariir magaalada ku wareegay Luqman ku wareegay meel aad u fiican way Soomaalida Jigjiga waxaan baaqayaa inay saa iyo si ka fiican ku sameystaan is walaalsadaan wadankana ka fikiraan deegaanka qofka uu dhashtay u leh qof deegaanka uu dhashtay asaga nin dhimaado wax kuma keeno marka waxaan u dhiilay shacabka Soomaaliyeed inay is biirsadaan deegaankooda ha bilaarsadaan ummadoodana gacanta ka qabtaan ninkii walaalka ka hooseeyay gacan qabtaan ugu dambeyntiina wuxuu hoosta ka xariiqay fariinta mahadnaqa iyo waxa uu maankiisa ku hayo ee uu gudbin lahaa tamaankii wuxuu u gudbinayaa waa faraxsanahay qofka hadiyad loo keenay oo ugu weyn maanta TV-ga inoo soo boqdo maanta all East Africa laga daawanayo iyo warbaahinta khudbada iyo warkii argaarinay taas waxaan heli karnaa SRTV Cali Barkhad iyo shacbiga iyo Jigjiga salaan diirna u diray iyo dawladda federaalka iyo maamulkeeda waxaan dhahaa waad ku mahadsantihiin martigelinta weyn ay sameeysan dalka Ethiopia iyo Kilinka soo dhaweyn fiican shacbi fiican ehel fiican baan arkay hadda kadib waxaan sameynaynaa socodkayga mar al halkaan soo maro waan jeclaaday waxaan arkay meel aan step aan ka qaadan karo aan wax ka baran karo oo dadka ula hortay karo inaan maanta gacantayda ku jirto taas ay biga dhacaagan aan ugu faa'iideysto waan ku maasantahay bulshada ku dhaqan degmada Wadheer ee xarunta gobolka Doolo ayaa cabasho weyn ka muujiyay biyo gelin la'aanta ka jirta degmadaasi Axmed Nuur Cabdiwali ayaa faafaynta warkaasi noo eegaya
qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo ayaa si weyn cabasho uga muujisay gelin la'aanta muddada badan haysatay bulshada gobolkaasi sidoo kale bulshada ayaa sheegtay in ay baahi badan u qabaan biyo gelinta xaafadaha magaaladaasi waxaan ka cabanaynaa biyo gelin la'aan tuubooyinka dhulka male haanun baa meel loo taagan biyaysan marka dee biyuhu maxay yihiin qalab la'aan baa jirtaan la leeyahay mar walba 5 sano waxaan sugaynaa biyo gelin mar baa la yidhi waxbaa la idiin biyo gelinayaa markiina way naga waxaysantoo maanu helin halkan waxaan ka cabanaynaa biyo gelinta waa barnaamijkii aan loogu talagalay magaalada Wardheer biyo gelinta ahaa ma hayno sababta xilli horeyna ahayd 5 sano ka hor bay ahayd 5 sano ka hor waxaan xilligan u laanahay iyo meesha uu maray maanaan garanin waxaan xukuumadda ka codsanaynaa arrintan aan qaadan karnaa maaha biyo ceeshi waa la qoday maxaan u baahannahay way shaqaynayaan waxa xilligan aan u laanahay mashruuc annagina loogu talagalay maanaa garanin meeshuu maray iyo waxa uu ku maqan yahay iyo systemku ku maqan yahay waxaanu ka cabanaynaa dhinaca biyo gelintaanu ka cabanaynaa muddo 5 sano ka hor annaga biyihii hore la geliyey biyihii hore way qasaareen tuubooyinkii hore ee la geliyey way faalid garoobeen mashruucii hore wuu khasaaray gobolka Doolo degmada Wardheer oo caasimadii biyo gelinteedii ma hayno meeday yaan u raacnaa haddaba waxay bulshada degmada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo xukuumadda deegaanka ka codsatay in laga xaqabtiro baahida dhanka biyo gelinta magaalada Wardheer waan ka codsanaynaa xukuumadda inay macnaha hoos noo eegto oo na soo gaarsiiso horumarka si horey baan dib ugu dhacanay dib dhacdo ma nagu sameyn xukuumadda cusub waxaanu ka codsanaynaa si degdeg biyo gelinta in loo soo intuu booyinka naloo keeno in naloo fasaxo waxaan codsanaynaa sida ugu dhaqso badan jawaab degdeg inaan xukuumadda cusub uga helo oo aan jawaabteedii u helo hadaanu shacabka Doolo ama degmada Wardheer aanu nahay baanu codsanaynaa waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan doonaynaa biyo la'aanta haysata iyo dhibaatada arrimaha biyaha naga haysata iyo haweenka dhabarka biyaha ku soo qaadaya iyo dhibaatada haysata jawaabteedii inaan ka helo waan sugaynaa haddaanu nahay bulshada degmada Wardheer xukuumadda cusub waxaanu ka codsanaynaa layd maanu lahayn oo biyo maanu lahayn oo wado maanu lahayn inay biyahayagii meel ku sheegto biyo gelintii haan baa naloo dhisay 5 kilomitir